السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايز كسر دوادا مركلة مقال عصب هلكت نجلة سعطان والراش فيلمز خف كيد الله لاين ولكن ريراش ويلكم باك with another video. ما أنت إنه حراشة كبحنا سيدا عادة إنه نزل كام تحنا هبون أنت المقال وكذا جنين وحكا عدسني هنا سبسكرايب نوصارت اللايك تا كومنتيجا شير تو أنتوا إنه دير جنين. إنسان قبل أن قاعدوا حيدر هذا لبدي حلقات إلا يتطبط كاسو حساب بحو إن أسكت سوقته إن أسبوع لك كراكشن وقبحيه إن aad baan ugu faraxsanahay xalqadii hore reactionka aan bixiyay si fiican ay ugu soo falceliseen adinkana muuqaaladana waxay noqdeen kuwa markaas viral ah oo aad loo daawaday waa idinka mahad celinayaa musalsalka haboon ayaa wuxuu noqday musalsal aad loogu taxan sida wada ogtihiin labada xalqadood ugu dambeysay oo ahayd xalqooyin cajiib ah isla markaasna waxaan ku dhex aragnay in musalsalka uu noqon doono insha Allah mid season labaad yeesho oo meel fiican soo maray in lagu jiray soo marka waxaan isla galeynaa bal waxyaabo ka kooban aan ka soo qaatay musalsalka bal aan isla aragno oo inta muhiimka ahayd aan soo yar xushay bal intaas aan isla yar daawano تعالوا هذا الشيطان كنت استلنا أعوذ بالله يسوع gabadha ayadaa tagtay iyadaana soo noqon doonto ayar ducaale buuqiisa waa taagan yahay markaan ofaade ayar ducaale buuqiisa markaan waa taagan yahay seefto kalka kala baxsa idin sheegay waay istaji hadday soo noqonaysa hor ha waa soo noqonaysaa le ku haysaa mana raadinayso hadday soo noqon waysa ka waran ayadaa tagtay maamada warkeeda waa cadi ah wax careless macnaha kuleel iyo qabow kuma hayso dhib waa jiraa waxna waa dhacayaan hadday soo noqonaysa aba oday waa hanjabooya markaan haye maxaa dhacay gurigan qof dambe iyo laba qof oo dambe isku salaamaysa ma hadday soo noqonaysa waa lagu kala yaaca camal ad waxle ma dhegeysataa qofi gabadhan ismahaad magaceeda saxda ah waxaa umaleynaa in la dhaho adiga maalin hore barnaamijka daawanayay laakiin wallaahi bilahi tallahi waxaan ku yidhahda doorkeeda ay qaadatay the best oo kusoo baxday macnaha qeybta laga siiyey filinka inay ka jisho qeybteeda waaweynka ku tag dhag a meel la dhiganayo aduu iska baxataa lan joogeynaa reenaadna oo cada maamada saa camalkaay duqi hataa bax maa dhaaday saaxiibow intaana waxa waaye xalqadii ka horeysa waa iyadana in la raadinayo jamaal uu raadinayay ay saddexdooda israaceen xamdi iyo jamaal iyo saaxiibkiisa inay haboon soo raadiyaan suuqa laga soo raadinaya markaan haye fashalaad weyn a meeshaan ka dhicirta laakiin aniga waan ogahay bulugta adiga kaa muuqato jaceylkaada haboon ayaa maqan yaa indhahay taagto walaa maskiin tiri jaceylkaaga haboon ah walaashiis la ahayd goorma jecel noqotay hay saaxiib aniga kula raadinayo anaa garabkaada taagan waxba ha ka walwalin asakan hadal badnaa waayo dee isku soo tuuraa ka waran insha allah waa rajeyna saaxiib waxba ma arkin dee ninkan maadaama xaafadii og tahay qoftaani taasi damac badan kagama jira umaleynaa insha allah saaxiib abuu haboon iyo jamaal mise dhawana waa yaaban tahay haboon iyo jamaal walaaleyba ahaayeene jaceylku ninkaan sheegay maxaa waaye ha way isla dhasheen haye hab jaceylkaaga haboon waa hele iyo waxaas maxaa udheysa marka xaddi caadi ma cabdi gacanaa taag sheegay maxaa udheheysa jaceylkaaga haboon maa saas maan dhahay kulaha ka waday walaasha waa helay caadi uga baxay walaa boos qaatay ahla farxay ganaa maleynaay maya adiga ma qaldanid anaa qaldan xabadda jaw caadiyana la geliyo wallahi abuu su-aalaa rabaa inaan ku weydiiyo si sax ma iga jawaabeysaan horta qofay ku nafistay rabtaa markaan okay kaga jawaab maxaa diiday okay jamaal adiga saaxiibatiini si wax jeceyl muu leeyahan maya jamaal wax jeceyla ma lahan haye waaba la farxay adiga qaybtan waxaan usoo qaatay intaan waan ka yara jaray wax badana jiro oo inay macnaha jamaal jeceshahay inay usheegatay saaxiibkiisa qaybtan waxaan usoo qaatay iyadana waxaa jirta qayb kale wax kalena lagu tusay rayaxuna waxaa la tusinaya ninka jamaal qof baa qof faasi ku dilaya maaha boomba qof kale miya I don't know
riyadan meelay ka timid ma naqaan, iyadana riya waana loo keenay lasoo loo socdaaye. ducaale ducaale adaa fududa la yidhi, anaga meel ma aadin karna mo boorsidiisa soo qaatay dharkiisa guurinooyaye. xageed u socotaa oo dharka la aruursanaysaa? adi waa bixi kartaa madhiino saa camal maamada iyadu ma kula xumaatay? waa baxaya baadiyaan aadaya. ducaale baadiyan tagay racana cagoon aada buuq magaalo ma warow, siyaasadna waa ka baxay mar hore. maxaa soo kordhayna? adi ma maxaa soo kordhay maama saa camalkaaga? adi ma dhihino gurigan anaga meel mau dhaafi karna iska bax, waa ogtahay waxaadna inaad isku qarbastay he. waxba ducaale markaan wuxuu goostay wax la dhahaayo maxaa la yidhahdaa inkiraad waxba oo taagaya, adiba waa inkirta ana waa inkira camal. magaalada buuqeeda iyo qiiqeeda iyo ina ayaama ka maqnaadaan u baahana. adeer ducaale magaciisa saxda ah magacan ducaale magac kalo lahaa, waana artiste ninkan u sameeyay kartoonka astaan u sameeya weyaan. oo adigoon cidna u sheegin aad iska bixaysaa? soo aniga haddaba kuu sheegay. dhibcaha waa qaata markaan buqa maamada warka dhan waa lagu xiray. ducaale maad iska joogtid? horteeda ka tahay waad ujeedaa gurigan soo maalinba qof uga tagayo guriga dhan cidlo nagu noqday. kuwada faraxsanayno xirsi abaxay maama waxaa tirahda saa markuu soo baxday imaan doono haboonaad baxday hadda sariirta lagaaga tagoyahay qolkaaga ka dhex bilaabatay, daaradda waa soo dhaaftay qolalka kaleeto. ma joogi kari inaan baxo oon Warka waa caddi ah. u baahana. waayaha goorma soo laabanaysaa? ma ogi oday imtixaan noqdo caawa haye. oo wax kuu qorshaysan ma jiraan miya? maya dhowr bilood inaan maqnaan doonaan u malayna. shikaarkii adduunka wallahi ducaale waa ku dayay. waxaan oga intaan waxaa soo wacday islaantii wiilka xanuunsanaa wadatay deeq hooyadiisa, marka maamada qaladka ay galeen u sheegaysa. dhibaato kastoo gabadhaas ku dhacda labadeena ee sababna maxaan ya sida labadiin sabab ugu tiin waftaan gabar laba kaa soo doonatay. anaga sabab ugu nahay, bal ii sheeg bal maxaynaan sabab ugu ahayn? gabadha anagaa qasabnay, waxaysan raalli ka ahayn aan ku qasabnay. malisnaba adina qasabtee. aniga dambigaad samaysa ha iga dhigin qof kula sameeyso waxaad sax waay iska celi. oo ma waxay kula tahay adiga inaad wax luga ku lahayn? ma kulahan bataatan gabar ay ku weydiisatay, gabar weliba adig gabar isigun ku dhihin, gabar wiilkan ku dara rabaayo ku tiri, adaa lasoo boodi oo haboon isdhaafi inkiraada jooji maama saa xanuunkaaga dambiga dadka maa dusha ka saaraysaa. aniga waxba kuma lihin, aniga meeshaan kan u noqonayaa saaxiib. aday ku taala waan ku salaamayaa, gabar aan kaa sugaayana ma jirto saaxiib, nabadgelyo. haye rajo ma laha. qaybtan waxaan usoo qaatay gabadhan idil aabaheeda maraan aa tusay, waa markii kafteriga ku kulmaayeen xalqadihii koowaad. midda kalena ducaalana way is yaqaanaan, oo ninkii professorkii ahaa oo buwaagti watay nin actor electrkiisa filin hadda ka horan daawada professor buufshal buufs ma fahantay. marka saasaa adiga maxaa la yihahdaa ugu jiraa filimka. kolley waxaan umaleynaya asiga electrkiisa inay sheeko u laaban tahay, sheekadiisa aan weli la faahfaagin. anima bilahaba xanuunka inuu ka kacaan hase taa u isdareensanaa inay xaaladiisaan ay kusoo roonaaneen. macnaha waxay ka dhigan tahay idil iyadoo yar inuu dayacay. waayahay muxuu ku dhaha markaad u tagtay? yacafiyo ilaah maadaama aan yaraantaada wax abaal badan ku gal waalidiin badan asaan sameeyeen carruurtooda
cidleeyo weliba ragga ugu badan. maxaa samaysa marka adiga wax fiicana samaysa maadaama cabis ku dheh Fariid taas laga rabaa waalidku ma koriyo qaladkiisa waa gartiisa gardaro gardaradiisana maxaa la dhahay maxaa la jiraa gartiisa gar gardaradiisana gar. maamada la tirkeeda Fariid weeyaan. qaybtaana waxaana lagu tusinayaa ninkii Jamaal oo asna guriga kasii bar rabo guriga Cumar Yeere iyo xaaska kusoo haraya iyo xabadan imaamada marka ismahani dhegeysa loo yaano waa bixra waay geesa aniga guriga waa ka tagaaya waxaan kula daardaarmaya waxaan kaa rabaa inaad hooyo iyo Cumar iyo adiga oo guriga kusoo harayo inaad daryeesho Jamaal waa gooyey boqol adiga iyo waxa soo harteen iyo xabadaada iyo warka kusoo taraalixin jirtay iyo miskiinka yaraa filinka si macnaha oo xalqado kale oo badan usii yeesho kala barkii in la maraya umaleynayaa maamada qaybtaana waxay ka codsanaysaa in ay lasoo degaan guriga idil iyo hooyadeeda that's why yaa loogu beegaa isiri in season 2 filinka loo sameeyo. waxaan kaa rabaa adiga sababtoo ah waxaan rabaa qaladkii aan sameeyo dhan in aan saxo. see ku saxaya haddii guriga kula soo degto dadka aa xumaysa dadkaan ma ahane adigana waxaan kaa qaladkaan aad saxaysa muxuu yahay iyaga dartooda ku saxaysa ilan keligay waxba ma qaban karan. ama labadaan iga baxa dhahdaa marka dambe haddiiba khaladaadka aad gasho dhan aad saxaysid oo garab istaagaya mahadsantaa. waaw dhamaadka filinka oo ah maxaa la yidhaahdaa qeybta ugu muhiimsan midda kalena isku xireysa season 2 iyo season 1 waa intaan iyadana si kedisa in Jamaal lagu soo waco soo lacag diraayo ninkan filimada turjumaa soo umaleynaya. halo habboon xaggee joogtaa halo ugu dambeyn habboon magaceeda ayaan filinka ka maqalnay iyadoo soo hadashay inkastoo codkeedina la maqalsiinin. habboon wax ma jira wigida majaajir ii sheeg sax inuu qadar noocaaga Nooca. lama kiigu ku dhiba korka waa nambarka saxan taasa dhibaataa soo kala wareeg saxib dukaamadaana ka fiirnaa majaajir waaw dhamaadka season 1 macnaha waxay ka dhigan tahay in season 2 loo sameynayo. season 1 wuxuu ka koobnaa 19 episode haddana kanna season 2 na allahu aclam intuu ka koobnaan doono. taas marka waxay ka dhigan tahay in sida filimada maraykanka aan daawano kaleeto taxanayaasha in season loo sameeyey oona laisku daba xirin. marka maxaan filin karnaa marka season 2 waxaan filin karnaa in sheekada dad cusub ay kusoo kordhaan kow laba waxaan filin karnaa in maxaa la yidhaahdaa waxyaabo badan ay isbedelaan xataa laga yaabo inuu actor kale xataa nagu soo biiro oo Jamaal meesha ku cariiriyo baawar dambana inay yeelato season 2ga gabadha habboon. waxaa kaloo laga yaabaa in xataa waalidiinta habboon aan ku aragno season 2ga waxyaabaha laga filan karo waayaan maadaama season 1kii inta badan habboon ee dulmano ku ahayd ay ka cararta guriga. season 2 waxaa laga yaabaa inay wax badan isku furaan waxyaaba badan ay kusoo kordhaan xataa waxaa laga yaabaa season 2 inuu qof kale soo baxo. marka kolley dhawaana la yidhaha waxaan u malaynayaa season 2 inay la sugayaan ramadaanta qiyaas ahaan hadday kasoo hormariyaan oo arkaynaa waana jeclaan lahaa season 2 iska dhaafay season 3 season 4 inuu yeesho maxaa yeelay taxana aad aan u jeclahay weeyaan aadna u wanaagsan oo aadna qurux badan. kolley taxanahayni season 1ka habboon seasonkii koowaad saasaan kusoo gabagabeynay wixii reactionna kolley waa isla aragnay. muuqaalkan hadaa ka heshay like noo saar sheerta commentiga inta waa noo dhiirigelin subscribe-kana aad aan u jecelnahay. yes we love subscribes. intaan kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo peace and love.